بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا channelka saadka aakhiro. Kusoo dhawaada mawduucan ugu magac daray islaamka iyo sinaanta. Waana barnaamijkeeni hore ayuu daba socday ilbaxnimada islaamka ayaan waxyaabo yar ka soo qaadanaynaa tusaalooyin. Ilbaxnimo dhameystiran waxa lagu tilmaami karaa waxyaabaha asaasiga ah ee bulshada ku soo biirinayo wanaaga sida bulshada oo nabad ku wada noolaata, bulshada oo amni hesho, bulshada oo badqab buuxda hesho, cabsidana ka baxda isla markaana dhibaato kasta oo ku iman lahayd ay kaga badbaadaan ayaa ilbaxnimo buuxda lagu tilmaami karaa. Balse dunidan maanta aynu ku noolahay maxaa ka socda? Dilalka, duqeynta aan loo meeldayin, barakicinta, macluusha, gaajada iyo haraadka iyo dhibaatooyinka faraha badan ee dunida qaybo ka mid ah ka taagan. Inta ay jiraan ilbaxnimo ayaa jirta lama oran karo. iyada oo lagu jiro qarniga 21aad weli wadamada ilbaxnimada sheegtay ee reer galbeedka oo Mareykankaba ugu horeeyo waxaa ka jira cunsuriyad diimeed iyo midab ku dhisan, taasoo ka mid tahay in midabka cadaankana la sharfo ama la cizeeyo, midabka madowga ahna la duleeyo amaba la yaso. balse islaamka waxa ugu horeeya uu la dagaalamay ayaa wuxuu ahaa cunsuriyada qabiil amaba midabka ku dhisan. diinteena islaamka ee suuban waxay sintay dadka oo dhan, waxayna diinta islaamka ay jiidaysay oo kaliya inay dadku ay ku kala sareeyaan oo kaliya cabsida alle. maantadan aynu joogno wadamada reer galbeedka isku sheega in ay ilbaxeen waxaa ka jira dugsiyo aan loo ogolayn in ay dadka madowga wax ka bartaan, goobaha cibaadada oo madowga ay geli karin ayaa jira, isla markaana ay isguursan karin dadka madowga iyo dadka cadaanka, iyadoo bini'aadamka lagu kala qaybiyo midabku ilaahay u abuuray. dadkaasi ayaana sheeganaya inay maanta ilbaxnimo gaadheen. haddaba diinteena islaamka ayaa ilbaxnimada rasmiga ah meel marisay, dunida oo dhan ay ka markhaati kacday. rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri: la fadla li arabiy من عجبي ولا أبيض من الأسود إلا بتقوى الله. عربتا عجب كما فضل بدنا أما كما شرف بدنا، عدان كان مدو كما فضل بدنا أما كما شرف بدنا، بلسه وحيكو كلا سريان أو كليا عبسد عليه وكا إسلامكو. وانا تنكينتي بلال إنو إسلامكا كورييلو، أبو لهبنا أودوليو، دينتي أبو جهل عيبيسي وحي عزيزي سلمان الفارسي وكدكتي أهل البيت كرسولك صلى الله عليه وسلم. البحنمada islaamka waxa asaas u ah dadku in ay siman yihiin. taariikhdana waxay ka markhaati kacaysaa sinaanta islaamka dhexdiisa ah. abubakar oo quraysh ka soo jeeda, salmaan oo faris ka soo jeeda iyo bilaal oo ardul xabash ka soo jeeda ayaa hal saf ku wada jiray oo islaamka mideeyay. haddaba ilbaxnimadaasi ayaa la rabaa in aan mar waliba xusuusanaa, ubadkeennana aynu barno. qodobkii maanta aan ku soo qaadanay channelkeena saadka aakhiro intaa inoo joogo. waa inoo mawduuc kale iyo channelka saadka aakhiro. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.